bismillaahi raxmaani raxiim ganacsade aan weligiisa khasaarin waxaa la sheegaa inuu jiray nin ganacsade oo reer Dimashq ahaa kaasoo mar walba sheegi jiray inuu weligiisa ku khasaarin ganacsi isagoo ganacsi walba bilaabana ku faa'iidi jiray maalin maalmaha ka mid ah asxaabtiisa ayaa su'aashay sidee bay suurtagal ku noqon kartaa inaadan weligaa ganacsi ku khasaarin xitaa hal jeer arrinkaasi wax aqligal ah ma ahan ninkii ganacsatada ahaa ayaa asxaabtiisa weydiistay inay taxaddi ama tartan la galaan tartankaas oo ah inay u soo bandhigaan ganacsi ay adag tahay in wax faa'iido laga sameeyo asagana wuxuu u ballan qaaday ganacsigaas inuu faa'iido ka sameyn doono ninkii ganacsatada asxaabtiisa taxaddiga ay aqbaleen kadibna way wada fariisteen waxayna ku fikreen ganacsi aan suurtagal ahayn in wax faa'iido laga sameeyo sidii ay fikradaha isugu dardarsanayeen ugu dambeyn waxay ku heshiiyeen hal fikrad waxayna ku dhaheen waxaan rabnaa inaad aado waddanka Ciraaq oo aad halkaasi ka samayso ganacsi timir haddii aad ganacsigaas ku guulaysato waad naga guulaysatay waxaana ku aqoonsanaynaa inaad tahay ganacsade aan marna guuldaraysan sababtoo ah timirta waddanka Ciraaq waxaa loogu helaa sida ciidda loogu helo dhulka saxaraha ninkii ganacsatada ahaa ayaa si kalsooni leh u dhahay waan aqbalay taxaddigaas ama tartankaas ninkii ganacsatada ahaa wuxuu soo iibsaday timirtii si uu ganacsi ugu sameeyo wuxuuna u socdaalay caasimadda Ciraaq ee Baghdad oo xilligaas ka jirtay khilaafadii Cabbaasiyiinta waxaa la sheegaa in boqorka magaalada Baghdad markaas uu socdaal ugu maqnaa magaalada Mosul taasoo waqtigaas ahayd mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan ee waddanka Ciraaq ninkii ganacsatada ahaa markii uu soo gaaray magaaladii Baghdad waxaa jirtay dhacdo la yaab leh oo markaas ka socotay magaalada Baghdad dhacdadaasna waxay ahayd in gabadha uu dhalay boqorka ay ka luntay silsilad dahab ah intii ay ku jireen safarkoodii magaalada Mosul boqorkii wuxuu ballan qaaday in ciddii hesha silsiladaas uu siin doono abaalmarin aad qaali ah sidoo kale inuu u guurin doono gabadhiisa ninkii ganacsatada ahaa markuu soo gaaray magaalada Baghdad wuxuu arkay dadkii reer Baghdad oo si waalan u raadinayay silsiladii gabadha boqorka wuxuuna weydiiyey waxa dhacay markaas ay u sheegeen qisada gabadha boqorka iyo silsiladii luntay iyo qofkii hela abaalmarinta la siinayo waxayna u sii raaciyeen waxaan soo baxnay anagoo wax sahaya hore aan soo qaadan haddana ma awoodno inaan dib ugu laabano magaalada sababtoo waxaan ka cabsanaynaa qof kale inuu silsiladaasi horteena helo ninkii ganacsatada ahaa ayaa markiiba dhahay waxaa idinka muuqato gaajo daran waxaan ahay ganacsade ka ganacsada timirta cid waliba rabtana waan ka iibinayaa isla markiiba waxaa ku soo xoobmay dadkii meesha joogay oo dhan waxayna ka iibsadeen timirtii oo waday dhammaan weliba qiimo 2 jibaar ayay kaga iibsadeen sidii ayuuna tartankii ugu guulaystay ninkii ganacsatada ahaa asxaabtiisa kale boqorkii magaalada Baghdad ayaa warkii soo gaaray wuxuuna aad ula yaabay sida ganacsadahan ka yimid Dimashq faa'iido ugu sameeyay iibinta timirta waddanka Ciraaq iyadoo labada og yahay inay Ciraaq timir si xad dhaaf ah ugu baxdo boqorkii ayaa aad ula yaabay dhacdadan wuxuuna markiiba dalbaday inuu la kulmo ninkii ganacsatada ahaa markii uu soo gaaray qasriga boqorkii ayaa dhahay ii sheeg qisadaada ninkii ganacsatada ahaa ayaa ku jawaabay maalinta aan biloobay ganacsi ilaa iyo maanta hal mar xitaa wax khasaare ah iguma dhicin boqorkii ayaa weydiiyey sababta markaas ayuu ku jawaabay ganacsadihii waxaan ahaa wiil faqiir ah aabbahay wuxuu dhintay anigoo aad u yar hooyadayna waxay ahayd naafo waxaan hooyadii soo daryeelayay ilaa iyo yaraanteeda markii aan soo gaaray 20 jir hooyadii waxay igu duceysay inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala isiiyo guul nolosha iyo adduun iyo mid aakhiro intaba iyo inaanan wiligay khasaaro ganacsi la kulmin xarada aan gacanta ku qabtana inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala iga dhigo dahab waxay kaloo igu duceysay inaan guursado gabar ka dhalatay reer magac sharaf iyo karaamo leh boqorkii wuxuu aad ula yaabay qisadii ganacsadihii reer Dimashq wuxuuna ka dalbaday xoogaa timir ah si uu u cuno kadibna abaalmarin u siiyo ninkii ganacsatada ahaa ayaa xoogaa timir ah boqorkii siiyey asagoo qasad aan ka ahayn ayuu gacmihiisa carada ku soo qaaday si lama filaana wuxuu ku helay silsiladii boqorka gabadhiisa iska lahayd heerkaas oo dhan wuxuu ku gaaray ducadii hooyadiisa u duceysay wuxuuna noqday qofkii ugu horreeyay taariikhda ee timir u soo dhoofiyay waddanka Ciraaq kuna guulaystay ganacsigiisa sidoo kale wuxuu guursaday gabadhii boqorka Ciraaq maadaama uu helay silsiladii boqorka gabadhiisa nabi calayhi salaatu wassalaam wuxuu dhahay قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسى له في أثره فليصل رحمه قفك الجعل إن لو بلاريو رزقيسا أما لو ديريو عبريسا ها حريريو قرابديسا هدي قرابد حرير كودا لو بلارينا رزقيغا لو ديرينا عبريغا بل كورن والدكاغا أديغا كودا لحرير كودا محاتو ملين كرتا محات سكو هيلي كرتا
dhammaanteena haddaan rabno guul adduun iyo mid aakhiraba waxaa nagu waajib ah inaan waalidkeena aan adeecno oo aan baari u noqono. qaala allahu tacaala waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalidayni ixsaana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سورة الإسراء. صدق الله العظيم. السلام عليكم